madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka George W. Bush sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Salaad Maxamed Salaad Soomaali. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu tacsiyad u diray qoyska uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush. qoraalka madaxweyne Farmaajo oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in George W. Bush uu ahaa nin dawladeed isla markaana ku dadaalayay nabadda dunida. aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka Soomaaliyeed waxaan shacabka Mareykanka iyo qoyska George W. Bush ku tacsiyadeynayaa geeridii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo ahaa nin ilaalin jiray dimuqraadiyadda ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Bush ayaa yimid Soomaaliya xilli colaad iyo macluul ay ka jirtay oo ciidamo ka socday dalka Mareykanka ay ku sugnaayeen dalka Soomaaliya. Salaad Maxamed Salaad Soomaali Som News TV Muqdisho.